السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka waad ilaahay amad iska leh marka waxaa mahad celinaa jaamacadda alxayaat oo fursaddan noo siisay inay isu keento labeyntii dalka iyo dadka. xaqiiqdii waa guddoomiyaha chancellor ku-xigeenka kulli waa u mahad celinaa agaasimayaasha isbitaalada oo dalka wax badan u soo shaqeeyey. mahad kadib waxaan ahay madaxa ururka cilmi-baarayaasha Soomaaliyeed oo loo yaqaan SRA. waxaa aad looga hadlayay in badan researchka dalka baahida loo qabo. marka si guud waxaan uga hadlaa in general and then dalkan hoos ugu soo daadega iyo researchada asleenahay dalkii waa laga sameeyey. marka dabcan markaan ka hadlayna research adduunyada markaan u fiirno wadamada veto power ka leh 1900 dagaalkii koowaad adduunka ama 100 sano ka hor ayagaa adduunka hogaaminaya 100 sano kadib ayagaa hogaaminayo. macnaheedu maxay ku hogaaminayaan na waa researchka. markaa fiiriso Mareykanka adduunyada GDP-giisa almost 4% waxaa lagu bixiyaa research asigaa hogaaminayay. dhowaan Chinaha kala wareegay oo 5% GDP-giisa ku bixiyay. maanta marka adduunyada aan joogno researchka la sameeyo adduunyada isugee against China waxaa awood badan waxaa ka adduunyada dhan waxaa ka research badan hal China because China GDP-giisa 5% ka mid ah research lagu bixiyaa. okay marka China meel la dhigo adduunyada inteeda kale isugee against hal America ka research badan adduunyada dhan. okay markaan ka soo tagno Mareykanka iyo China westernka marka ay maato Jarmalka researchka uu sameeyo hal wadan oo xaal oo Jarmal ah intee ku dambeysay Nokia agaasimaheeda ama CEO-geeda saxaafadda horteeda ku ooyay kuma ooynin because of quality-gooda inuu xumaa laakiin waxay ku guul dareystay inay research sameeyaan ee la tartamaan inay ogaadaan in touch screen ay imaan doonto. marka mar walba oo aad researchka ku guul dareysato as a nation as a company dabcan waa guul dareysanay. Soomaaliya waxaa laga yaabaa shirkado badan oo marka hore bilaabeen laakiin awoodi waayay inay research sameeyaan qadka ka baxay. dabcan Hormuud waa maanta taabiigaliyaha barnaamijka. waxaa jirta shirkad ka horeysay oo telecommunication-ka ahayd intee ku dambeysay. waxaa jirta shirkad kale oo I think Nation Link. yes lama jeedo inaan dad aan si gaar u taabana laakiin haddii aad mar research sameyso you may know intee loo sii socdaa. marka intaas kaga soo gudubno jaamacadaha markaa imaano jaamacadaha caalamka ugu waaweyn 10ka ugu Mareykanka hogaaminaya macnaha muxuu ku hogaaminaa waa research. marka aan ka hadlayno macallimiinta inaad professor noqoto waxay kaaga baahan tahay inaad researcher ahaato. marka waxaad dareemay researchka ardayga markaa tahay degree markaa diyaarinaysa research laga rabaa master research laga rabaa PhD research laga rabaa all this waxayna tusaysaa importance-ga ee leedahay researchka. marka hadda markaan Soomaaliya joogno dabcan research badan la sameeyaa isbedelo badan way socdaan. maxaa jaamacadaha waayga hor waxay ku tartami jireen in laga hadlo oo kaliya 10 hal dhigo laakiin hadda waxay joogaan in la qabto researches. bishan December waxaan u maleynaa waxaa ka qayb galo ku dhawaad 10 research oo jaamacad barnaamijyo qabanaysa. taas maxay ku tusay in dhinaci kale la isla aaday. waxaa imaan doonta macallimiinta hadda ardayda hal soo jeeda laakiin macallimiinta jaamacadaha pressure la saari doona ama wax publish garee ama shaqada ka tag oo hadhow jaamacadaha inta haddaysan macallinka aan research sameynin not only inuu wax dhigo marka jaamacadaha qarashka laga qaado ardayda kuma filnaan doonto. marka waxaa loo baahnaan doonaa shirkadaha lacagta haysta isbitaalada in loo tago oo research grant laga soo qaato kadibna jaamacaddii lagu rangareeyo. taas waa jaamacadaha hadda caalamka ugu waaweyn Oxford iyo fiirinay like yearly 3 billion 4 billion dollars ay isticmaalaan. waa xataa qaaradda Afrika laga yaabaa budgetkooda hal jaamacad inuu ka badan yahay marka waxay xukuumadda waa researchka. marka dabcan anaga as Somali researchers waa sameynaa arrintan oo COVID-ka la xiriirta hadda waxaa ka sameynayna daraasad talaalka qaadashadiisa oo ay ka jirto caqabad dadka maxay u qaadan la'yihiin talaalka. doctorka waxa uu sheegay daraasad aan sameynay dhawaan waxaan ogaanay perception laga qabo isbitaal Martini inuu yahay wrong perception. su'aal waxaa jirta haddii aad talaal qaadanayso isbitaalka Martini talaal muu aadi lahayd gaswa dadka maxay dhaheen
أنا تليل أنا مرتين ميل لو قلت أنت واي مو دوننا طلال مركا وبرسبشن كدراسة ديني أوجاتي مركا بحاول جدا نسجود يسجارة again وحنو مهد علنا جامعة نا research كان الصوماليا يزبدل له وصعدا ونقالة بدن والوجو بحياة وحن أركي $3 مليون قليها حالنا جوج وحدهن دمرك الصومالي ذا قيب ما كنا كان السياسة ده $3 مليون لو ديبه واسيد ده وقلنا واسيد وحني عندنا تمام مشاريع سحال سيدات أو دبلوماسيين مركا لعق ويتالا نا research كنا وجرا لكن yes it's too early نا من آمن سن أنتان dad oo maxaa lahaa lacag aanan haysanin hebelo aanan haysan research ma sameyn karaan laakiin researchada aan sameeyno still waa adaptable dhawaan waxaa research ka sameeyay dadka HIV-ga qabo oo aad loogu takooro goobaha caafimaadka dhaqaatiirta takooraya dadka HIV-ga qabo ayagoo xanuunka la nool waxaan daraasad ka sameeynaa bajaajta dhalinyarada bajaajtooda iyo qaabka u nool yihiin waxaa daraasad laga sameeyay coronavirus-ka iyo lacagaha remittance-ga oo saameynta uu ku leeyahay marka there's a lot of progress socdo progress ka socon waxaa kamid ah maanta arintan aan meeshan u joogno jaamacadda Al-Hayat ay iidana qayb ka naqatay maanta ay dhahday yes it's not time only in ardayda wax la bare waa time for research marka mar labaad iyo mar saddexaad mahad celinaa waan idinkaga mahadnaqaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh